degmada Xingalool waa degmo ballaaran waxayna ku taallaa bartamaha deegaankani gobolkani Sanaaga waxayna ku tiirsan tahay dhanka xoolaha ee Soomaalidu ay dhaqato waxaana la aasaasay sanadii 60meeyadii degmada Xingalool waa degmadii aan ku soo barbaaray anigoo Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur kuna dhashay degmada Laas Qoray intaas kadib ayaan waxaan ku noolaa degmada Xingalool waxaana markaasi ku soo dhigtay dugsiga dhexe hoose oo ah degmo aad u ballaaran oo dhanka Soomaaliland ka degmo dhanka Puntland degmo ka ayaa taariikhda ay degmada Xingalool ay leedahay waxaan wax ka weydiiyay oo ka waraystay Sheekh Mursal Siciid Cali Waraabe oo ah abwaan ku nool degmada Xingalool ahna dadka taariikhda ururiya ee ku sugan degmada Xingalool siina markaasi macallimiinta ka howlgasha dugsiga dhexe hoose ee Xaaji Liman ee isla degmadaasi Xingalool degmada Xingalool waxa la degay markii laga qoday ceel muxuu ahaa Ingiriiskii uu maxay ahaaytay u baasgareeyay ama uu ogolaaday ayaa markii ay taariikhdu ahayd bishii 1960 ayaa laga qoray muxuu ahaa ceel riig ah ceelka riiga ahaa qorshihiisu wuxuu ahaa in laga qodo xin la yiraahdo Xinqurac oo waqooyi ka xiga magaalada una jira 5 kilomitir ayaa qorshuhu ahaa sarfayguna uu sheegay in halka biyo ku jiraan dabadeedna ninkii loo soo dhiibay oo garhayeenka u ahaa oo riiga la yiri geey Xinqurac ayaa soo habaabiyay oo wuxuu keenay xinkan la yiraahdo Xingalool ayuu keenay bishii 1960 ayaa riiga laga taagay muxuu ahaa Xingalool waxa riiga muday oo marka dawladda xilliga markii la qaatay bay ahayd muxuu ahaa xornimada la qaatay 5 bilood kadib waxa riiga muday oo wakiil dawladda uga ahaa Umar Carte Qaalib oo marka ahaa dhiisay muxuu ahaa markii dambena noqday muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya jagooyin badan oo Soomaaliya ka soo qabtay ninkaas uu ahaa ninkii keenay oo riiga muxuu ahaa isagu maalintii la mudayay goobjooga ka ahaa oo dawladda wakiilka uga ahaa markii 1960 riiga laga qoday waxa laga helay ceel biyo yar waan biyo badan lahayn waxa la degay oo reerkii ugu horeeyay uu degay bishii 1961 ayaa reerkii ugu horeeyay magaalada uu degay reerkaasna waxa la oran jiray Xaaji Liman Cali Shire waa muassaskii ugu horeeyay ee magaalada ayuu ahaa Allahu naxariistay wuu dhintay xaaskiisii sida ay ii sheegtay oo anigu aan wareystay Xaaji Faadimo Faarax waxay ii sheegtay in bishii 1960 yimaadeen waxayna ugu timi hal biyatooni oo ninkii riiga hayay iyo hal waardiye ninka riiga hayay oo marka shin telefoonka waxay ugu sheegtay in la oran jiray Xayraan Ducaale Finde baa la oran jiray bay ugu tiri ninka muxuu ahaa waardiyaha ahaana Ciise Maxamuud Ciise oo la oran jiray Allahu naxariistay isna dhintay ayay iigu tilmaantay waxay ahayd meesha tani deegaanka ka hor meel aboob ah oo biyo ka dheer ah oo maxay ahayd aan lahayn wax maaragtay bini aadamku ku degi karo biyo ma lahayn maxay ahayd durduro ma lahayn riiga ma lahayn berkada ma lahayn waxay ahayd meel libaaxa iyo ugaadho aad iyo aad ay ugu badan tahay waxay kala ahayd xilliyadii daraawiishta taleex annaga waxay noo jirtaa 80 kilomitir bay dhinaca koonfureed naga xigtaa waxay ahayd oo dadkii deegaankani uu ahaa aad u raacay dhaqdhaqaaqi daraawiishta ayay galeen taleex bay tageen eriyadani waxay markaa ahayd meel ay daraawiishtu ka ugaarsato muxuu ahaa waxyaalaha cidda dadka lidiga ku ah siiba ciidankii gaadhaye ee Maxamuud Cali Shire Suldaan Maxamuud Cali Shire ciidankii gaadhaye oo dhinaca Laas Qoray iyo dhinacan fadhiyay buurta ayay meelahan difaac kaga jirtay oo ay maxay ahayd ay kaga jirtay waana tii uu lahaa ninkii sayidkii xadeed iyo fadhiyay ximan daraawiishta xaafid al-Quraan buu ahaa soo xajiyay dhowr macni in uu xadeedkan iyo ximanka kan magaaladu ku taalo oo ilaa 32 xin ah ayay waxa u ahayd saldhig ciidamada daraawiishtu ay ka ugaarsadaan xilliga markii la degay oo 1961 bishii 7 reerkii ugu horeeyay uu degay
runtii waxaa laga aasaasay si islaantaasi ii sheegtay aqlo yaryar oo cariishyo ah ayaa laga aasaasay. gurigii ugu horeeyey oo dhagax ahaa waxaa ka dhisay xuseen aw cilmi, haddana wuu dhisan yahay. gurigii ugu horreeyey 1963 baa laga dhisay gurigii ugu horeeyey oo dhagax ahaa. al'aanna wuu yaallaa isaga oo sidiisii muxuu ahaa u yaalla. xingalool waxay dhacdaa koonfur bari ee gobolka Sanaag ayay dhacdaa. dhinaca bari waxaa ka xiga xingalool degmada Dhaxar. koonfurna waxaa ka xiga gobolka Sool bay xuduud kala leedahay oo degmada Taleex. dhinaca waqooyi waxay xuduud kala leedahay degmada Ceeri Gaabo ee magaalada gobolka Sanaag. dhinaca waqooyina degmada Baran ayay xuduud kala leedahay. gobolka magaalada Ceeri Gaabo waxay u jirtaa 145 kilomitir. meesha la yiraahdo Baranna waxay u jirtaa 145 kilomitir. Garawana waxay u jirtaa 150 kilomitir. magaaladu waxay caan ku tahay dhaqashada xoolaha, bay aad iyo aad caan ugu tahay, siiba idaha iyo muxuu ahaa geela. labadaas waxay ku tahay aad iyo aad caan ugu tahay, sababta oo ah waa dhul dalsan ah, muxuu ahaa dibir ah, dhulka dibirka la yiraahdo weeye. muxuu ahaa dhir badan oo geela iyo idaha u fiican baa ka baxa. waana meesha gobolka Sanaag ugu idaha badan ereyadan xingalool inta ay xukunto. maxay tahay ugu idaha badan. geelu walow hadeer abaarihii ay dhamaadeen wuxuu ahaa meel geeluna uu aad iyo aad ugu samaado ayay ahayd degmada xingalool. runtii degmadu waxay soo martay maraaxil fara badan oo muxuu ahaa taariikh nololeedadeedii aad u soo martay. taariikhihii ugu adkaa waxay soo martay xilligii dagaaladii, waxay soo martay taariikhihii ugu adkaa dagaaladii sokeeye ayay soo martay. waxay ahayd meel jabhaddii SNM iyo muxuu ahaa dowladdii markaa waddanka ka jirtay meel xuduud oo kale ah ayay ahayd. sidaa darteed dagaalo badan ayaa saameeyey. 12 bishii 8 1989 waxaa soo weeraray ciidamadii maxay tahay jabhaddii SNM ayaa soo weeraray. dad badan oo 40 ah ayay ku dileen, ilaa 60 qofna way ku dhaawaceen, dad ku dhow muxuu ahaa guryo badanna waa lagu gubay xilligaa. saameynta ugu badan oo dhinaca amniga ahi xilliyada dagaaladii sokeeye ee wadanka ayay maxay ahayd ay soo martay. runtii abaaro badan oo wadanka ka dhacayna saameyn badan ayaa ay ku yeelatay, sida abaartii 75 daba dheer la oran jiray iyo abaarihii ka dambeeyay ee faraha badnaa ee berigood xiriirka ahaa ee 2001 ilaa 2005 dhacayay. muxuu ahaa magaaladu dhaqaale ahaan waxay ku xiran tahay xoolaha nool. haddaba daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii koobnaa ee aan ku eegayey degmada xingalool ay leedahay. waa aniga oo ah Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur.